السلام عليكم. waxaan ahay gabar walaashiina oo idinka baahan waanayo waxyigelin. waxa idin soo gudban rabaa qasay ku dhacday sanooyinka hore. sida tan ayaa u dhacday 3 sano ka hore anigoo jaamacada sanadka u dambe maraayo ay qasadeen u dhacday. jaamacadii waxaa jiray wiilan aan aad isku dheereen. ardayda kale tadhan wuu iga xigay waan isku dheereen wiil aadan isku fiicanaan ahayn. maalintii u dambeysay aan jaamacada soo xiriirnay waxay dhacday waa la dabaaldegayay jaamacadii cid kasto friends kasto gees ay u dabaaldegayeen dhanba u dabaaldegayeen aniga wiilkana friends aan ahayn asxaabaan ahayn. maalinta xaafadan iska soo aaday wandaalna guriga markaan istimaaday soo wacay wuxuu dhahay halkee aaday xaafadan aadaan dhahay soo xuray inaan dabaaldegano soo ma jirto waxaan dhahay wandaalanahay waan iska yar seexani bari safaraan ahay waxaan u jeedaa reerkii xaafadan u socdaa muddo ka maqnaa soo hayo wuxuu dhahay waan ku imaanay cabitaan iyo xaafadan iska dabaaldegayna hayaan ilaan wiilka waa wiilan aaminsanahay oo ahaa asxaabaan ahayn. waxaan dhahay hayo waayahay bal ma xaafada markaad soo gaartay soo daqiiqadooyin kadib wuu imaaday wuu soo wacay waan u yeeray guriguu soo galay maasha Allah sida caadada ahayd waan soo dhaweeyay guriga kaligeeyaan joogay markaan reerkii ila degnaa guriga kala maqnaayeen. markaa soo dhaweeyay wiilkii aanay xumaan kama filanaynin ilaa wiilkaas asxaabaan ahayn muddo sanooyin dhan. kolkaan soo dhaweeyay ilaa cabitaankii aan cabnay baan iska damaashaadnay. qofka bini'aadankana damac ugu jira dhalinyarada intooda badan qofku waa damci kartaa qofka adigoo asxaabtihiin waa damci kartaa ilaan wii damcay wiilkaan asxaabnahay laakiinse anigoo fiirinayo damiisa wuu fulin waayay. wuxuu cabitaankii ayuu wax igu daray wuu banaanka kala imaanayay. cabitaankii maraan cabay waxay ugu dambeysay anigoo qoslayno oo sheekaysanayno iska faraxsan amiir ugu dambeysay. saacadooyin kadib ayaan soo kacay soo miir laabtay kan soo indha kala furay waxaan soo kacay anigoo mariyo dhan qabin oo qaaban oo sariirta saaran. waan yaabay maxaa ku dhacayaan isdhahay wallahi waxaan filanaynin meesha ka helay yarto. waan kacay anigoo xanuun badan ihayaan kacay. waan kacay gurigiyaan fiiriyay albaabihii way furan yihiin. waan baaray wiilkii waan u wacay war heblow waan dhahay insana waa tagaybo markiiba buu tagay wiilkii. waan damcay qolkii ku laabtay waan wacay telefoonkiisa waa xiran yahay alida. waan yaabay taladii ruuxan u sheegtan garan waaye waan iska aamusay waan iska asturay ceebta meesha markaa taalay wallahi waan iska aamusay. xaafadii baan soo aaday galabtiiba waan soo baxay tigadaan soo goostay meesha waxaan ka joogo ma jiro Soomaaliya. soo waxaan damcay inaan reerkeena u bandhigo misana way ilaahan weysay waayo wax iga qaadanaya ma jirto idhahayo qof weyn baa taynaya wax saaq ugu sameyn kara ma laha qof kasta idhahaya hadaan dhaho fikirkayga hadaan dhiibto wixii ugu dhacay waan iska qarsaday wixii ugu dhacay waan iska soo laabtay xaafadii. maalimaha kamid ah ayaan magaaladii reerkeena degnaayeen waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ah. maasha Allah waan isbaranay magaaladii isku baranay maalimaha kamid ah waan bartay waan xiriirnay nambaran kala qaadanay ada dhowr cishan xiriirinay waan isfahanay xiriir soo bandhigtay wiilkii. xiriirkiisa waan aqbalay maasha Allah waan isjeclaanay si xad dhaafan isku jeclaanay sida caadada tahay qofka markuu xiriir idin ka dhaxeeyo
wax kasta waa isku sheegatiin yacni waad u sheeganay waxa qalbigaada ku jiro u sheegi haddii dhibaato ku haysato iyo haddii farax ku haysato labadaba u sheeganaysaa qofkii markaan aan wada soconay lamaanihayga ahaa waan u sheegay saanay qabsatay muddo laga joogo 8 bilood ayaa saanay qabsatay nolosheeda sidaas ayaa tahay miyugu raacsan tahay miyugu jeceshahay mise wadada iga tagaysaa waan dhahay mayo dhahay waan ku jecelahay aniga wiilkii aan sheekaysanayna markaas wuxuu qiimaada qurbaha wiil wadanka jooga ma ahayn soo qof waaye aragu ahaa oo iga weyn ahaa oo iga khibrad badan ahaa waayo ana dhibkaygu dhacay banaan cille igama tagin wuu qaatay sidaan ahay bas muddo laga joogo sanad waan wada soconay waan isjeclaanay si xad dhaafe mar allaalo markuu dhaho xafadiina ma u bandhig arinkeena inaan ku guursadaan rabaa mar allaalo aan dhaho xafadiina u sheeg hooyaday sareerkeena aan wala tago aan dhaho aan u bandhigtid haddana waxba yar celinay marka igu dambeysay aan go'aansaday inaan reerkeena u sheego maalin galabe aan u tagay reerkeena hooyo aan dhahay waxaa jirto inaan wada soconno aan rabo inuu i guursado sidee u aragtaa kolkaasay tiri naa wiilkii reer hebla ahaa ayaaba kusoo doonaya kugu daraayay ee ninka kale ah wadatid maxay tahay markaas xandee hooyo inaan wiilan aqaanin sideen u guursadaa siduu ii guursadaa mana sheekaysanine qofka aan sheekaystaan ku keenayay ma ii guurinaysaa markaasay tiri maya yaan ka maqlan waxaas hawaar iyo ducamida dooranaysaa wiilka reer heblo ayaad guursanaysaa iska daa kan kala warkiisa nin qurbo jira ma rabaane ilaa xogteeda way sii haysay gabdhii walaalay u sheegeen markaas waxaan dhahay aniga wiilka ma rabo hooyo waxay dhahday ama ducaa qaadani ama hawaar baad qaadani anigoo fiirinayo anigoo jecel ducadii hooyaday oo marna aan ka gabanaynin aan jeclahay inay i duceyso hari haween misana fiirinayo sharaf darrada ii imaanayso waayo wiilka igu darayso warka ma hayo arinkaygu dhacay aniga maanta haddaan ogolaado guurkiisa waxaan ogahay uu i arko inaan gabar ahayn sidan ahayd wuu soo furayaa reerkeena wuu maanay gabadha aad siisteen gabar ma ahan uu dhihi sida dhaqanka tahay gabadha marna anigoo iska ilaalinayo inkaarti hooyaday iyo waalidkayga oo sharafteeda dhowraayo ninka aan jeclahay aan dhaho waan guursanayaa waayo asaga sharafteeda wuu aqaanaa wuu ka warhayaa xogteeda oo waxa igu dhacay wuu ka warhayaa si kastoo igu qaabilsan yahay bal waxaa asxaabay waxay igula talin lahaydeen ii sheega bal waxay dhihi lahaydeen ducada waalidkaada qaado oo sharaftaada banaanka soo dhig sharaf la-aantaada yacni waxay igu dhacay waa taqaaniine mise inkaarta waalidkaada qaado oo sharaftaadana dabool bal midkay idinla fiican ila soo socodsiiya waan talada iga wareertay ii taliya waad maasantihiin asxaabo